asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad kusoo dhawaataa mar kale janaalkeena Hill Software waad kala socotid barashada culumta teknolojiyadda. haddaba waxaa inoo socday cashiradii imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa Windows 10. haddaba maanta waxaynu baranaynaa sida markaas aad u abuuri kartid user icon. marka userka sida loo sameeyo ayaynu maanta halkan ku baranaynaa. computerka waxaa dhici karto qofku waa muhiim inuu barto qaabka loo sameeyo loona ogaado inta user ee computerka markaas ku samaysan. waxaan isticmaali doonaa laba qaab. qaabka koowaad waxa uu noqon doonaa sida tan. sida waxaad ku dhufataa start menu. kadib start menu markaa ku dhufatid halkan waxaa ku qortaa control panel kadib uu kusoo baxaa qaybta u koreysa oo control panel ay ku qoran tahay. click marka aad ku dhufatid oo ay kusoo baxdo qaybtan meeshaas administrative tools meesha ay ku qoran tahay. click marka aad ku dhufatid sidoo kale waxaa kusoo baxayo meel ay ku qoran tahay computer management. computer managementiga double click laba jeer riix. kadib waxaa kusoo baxayo sida aad arkaysa meesha markaas laga maamuli lahaa computer managementiga. qaybtan hoose ay ku qoran tahay meesha local user and group click laba jeer riix. markaa riixid waxaa kusoo baxay meel ay ku qoran tahay user iyo meel ay ku qoran tahay group. haddaba waxaad ku dhufataa oo aad rabtaa inaad samayso waa user. click userka marka aad ku dhufatid waxaa kusoo baxayo userada ku samaysan computerkaaga iyo kuwa markaasi shaqeynayo iyo kuwa aan shaqeyneynin. kuwa aan shaqeynin calaamada aad u jeedid haddaad fiirisid waxa ay ku tusinaysaa inuusan shaqeyneynin calaamadaasi. kuwan kalena markaasi way shaqeynayaan. kuwan macna disable waa ma shaqeynayaan. markaa dirtaan waxaan sameyneynaa mid cusub meel banaana sidaan oo kale inta timaadid right click keyboardka right click kadib new user cancel dheh. waxaan rabaa inaan ku tuso qaab kale oo ka fudud oo isla meeshaan adoo joogo ayaa waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay right-ka action meesha ay user ku qoran tahay. click markaa meeshaad ku siisid new user kuu soo baxayo. labadaas qaabba waad ku samayn kartaa adoo meeshaan banaanka ah click ku siiyey iyo adoo meeshaas more actionka click ku siiyey. marka userka magaciisii ayaa halkan ku qoraynaa Hill Soft. userkii magaca marka qofkaas isticmaal lahaa tusaale ahaan oo kale Axmed iska dheh. passwordka halkan ayaad ku qoreysaa 123 passwordka 123 had create aa leedahay. macnaha computer nameka ayaa waxaa ku qoran macnaha Hill Soft magac waa inaad ka bedeshaa. magac waa la isticmaala ayuu leeyahay marka iyo one create. marka userkaas wuu noo samaysan yahay. haddii aad halkaa fiirisid waa kana userkii aan markaas samayn. haddii marka aad rabtid inaad sii ogaatid waxaa ku ogaan kartaa markaad click start ku siisid meeshaan ku dhufo waxaa kuu soo baxayo Axmed waa userkii markaas aan samaynay magaciisii. marka sidaas ayaa loo sameeyaa user. haddaba waxa aynu qaadanay cashir koowaad ee qaabka ugu fudud ee markaasi loo sameeyo userka. sidoo kale markaana waxaan ku tusinayaa qaab kale oo fudud adoo markaas isticmaalayo common promptiga. waxaad tegaysaa meesha search boxka waxaa ku qortaa cmd right click dheh oo waxaa ku gashaa qaab administrator. click marka aad gashid waxaa kuu soo baxayso common prompt ayaa kuu soo baxay. meeshaan waxaad ku qortaa net user micnaheedu waxay tahay itus wixii markaasi ku samaysan. haddaba userkan waa xasuustaa markii aan samaynay Hill Software 1. marka waxaan u baahanahay hadda inaan samayno mid kale net user
space magaca